wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qodobada wararka bandhiga TV kubaad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya musharax daahir geelle oo kulan gaar ah la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe dowladda Soomaaliya oo ka hadashay dhaawacyadii shalay loo geystay ciyaaryahanno ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya maamulka gobolka Mudug iyo kan Galmudug amaro culus soo saaray dowladda Soomaaliya oo qaramada midoobay kala hadashay dhaqaalaha ku baxay doorashooyinka gudaha dalka Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Mudug oo ka jawaabay hadalkii ka soo yeeray Sheekh Umul qodobo dhowr ah oo looga hadli doono shirka maanta ka furmi doono magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal ee maamulka Puntland akhbaaraadka Soomaalida ka baxsan warkeena aad ku daawan doontaana waxaa ka mid noqonaya dowladda dalka Sacuudiga oo xukun ku riday haweeney xuquuqda dumarka ay u ololeynaysay inta daawadayaal waxay ahaayeen qodobada wararka bandhiga TV kuwa ugu waaweyn fadlan daawado subscribe noo saar warka noo sheera galay haniga iloobi comment una diyaar garooba isagii oo fidsan aynu ku bilownay musharax daahir geelle ayaa kulan la qaatay madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe musharaxa madaxweynaha Soomaaliya daahir Maxamuud Geelle kana mid ah midowga musharaxiinta ayaa magaalada Garowe caasimadda maamulka Puntland waxa uu kulan gaar ah kula qaatay madaxweynaha dowlad goboleedka maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoowe kulanka oo ka mid ah kulamada hordhaca u ah shirka madasha wada tashiga ee macadka Heritage ee qaban qaabisay waxaana ay uga wada hadli doonaan xaaladaha dalka sida arrimaha doorashooyinka iyo sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho la isu ogol yahay musharaxa madaxweynaha daahir Maxamuud Geelle ayaa madaxweynaha Jubbaland uga mahad celiyay kaalinta uu ka qaadanayo dowladnimada Soomaaliya iyaga oo ku ballameen in ay kulamada si xoojin doonaan daahir Maxamuud Geelle musharaxa madaxweynaha oo Garowe u tagay ka qaybgalka shirka madasha oo tashiga macadka Heritage u qabanayo ayaa kulamo kala duwan la qaadan doona madaxda dowlad goboleedka maamulka Puntland iyo sidoo kale shacabka halkaasi ku dhaqan dhinaca kale haddaynu qaar ka mid ah ciyaaryahanada ka socotay maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo qaybta ka galayay tartanka kubadda cagta maamul goboleedyada dalka iyo gobolka Banaadir ayaa la dhaawacay kadib kulankii laga badiyay oo ay ku hartamayeen semifinalaha koobka ayna u baxayeen maamulka gobolka Banaadir ilaa 6 ciyaaryahan oo ka tirsan xulka Koonfur Galbeed ayaa la dhaawacay kadib markii gaari bas ah oo ay saarnaayeen dhagxaan lagu weeraray waxaana halkaasi ka dhashay falal dhankaasi iyo dhaawacyo ee soo gaara ciyaaryahanada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taasi oo ay ka hadashay dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa waxa uu falkaasi ku tilmaamay in uu aad uga xun yahay lana aqbalaynin in arintaasi ay dhacdo laakiinse ay Allah subhanahu wa ta'ala ugu bariyaan intii waxyeelay ka soo gaartay falkaasi inuu u booqanayo waxa uu Allah sidoo kale uga bariyay in caafimaad degdeg ah uu siiyo ciyaaryahanada xulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya sidoo kale waxa uu sheegay in ciyaaryahanadaasi waxa ku dhaceen ay aad ugu xun dhinaca kale haddaynu eegno maamulka gobolka Mudug iyo kan Galmudug oo amaro culus maanta baxday xafiiska gudoomiyaha gobolka Mudug iyo kan Galmudug Cabdiraxmaan Cali Diiriye isxal ayaa lagu sheegay in magaalada Gaalkacyo aysan jiri karin cid aan wadan sharci ama daliska dharka booliska ay wataan hubna aysan ku dhex qaadan karin guud ahaanba gobolkaasi Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Mudug ayaa ku amray hay'adda samafalka shirarka iyo hoteelada in ay u hoggaansamaan amarka ka soo baxay maamulka sidoo kalena ay diiwaan galiyaan hubka ay haystaan iyagu ahaantooda sidoo kale waxa uu sheegay duqa in hoteelada iyo baararka waaweyn ciidamada ilaalada ka ahi in hubka ay wataan la diiwaan galiyo si loo hubiyo ammaanka magaalada Gaalkacyo oo dhawaantan farxa ka sii baxaya ugu dambeyntii waxa la amray in wixii ka dambeeya 6 ilaa 30
habeennimo aysan gawaarida soo geli karin kana bixi karin magaalada Gaalkacyo iyaga oo amaradaasi la ogeysiiyay laamaha amniga iyo maamulka degmada magaalada Gaalkacyo. Amarka ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha gobolka Mudug ee Galmudug isaguna qayb uu ka yahay Cabdiraxmaan Cali Diiriye Isxal ayaa ka dambeeyay kadib markii magaalada Gaalkacyo ay ku soo bateen falalka amni darrada ku ah, iyadoo sidoo kale ay xusud mudan tahay in qarax ismiidaamin ah lagula dilay saraakiil aad u fara badan uu ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolkaasi Mudug dhawaan. dhinaca kale haddii maanta waxaa la filayaa in magaalada Garowe ee xarunta gobolkaasi Nugaal uu si rasmi ah uga daafurmo shirka madasha aragti wadaaga sanadlaha ah ee uu soo qaban qaabiyay macadka Heritage kaasi oo loogu hadlayo xaaladaha dalka iyo doorashooyinka gudaha dalkaasi Soomaaliya. shirweynaha oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa ka qayb galaya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka, qaar ka mid ah madaxda dowlad goboleedyada dalka, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya, xubno ka mid ah musharaxiinta mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah. madasha aragti wadaaga shirka oo qaban doono 3 cisho ayaa waxaa sanadkan diiradda lagu saari doonaa sidee 2025 loogu bixi karaa ku meel gaarnimada iska socota haatan si dalka uu u helo dastuur dhameystiran, doorasho qof iyo cod iyo nidaam federalism ah oo lagu wada shaqeyn karo. sidoo kale madaxda ka qayb galaya shirkan sanadlaha ah oo isugu jira mucaarad iyo muxaafad ayaa xalay waxay yeesheen kulamo hordhac ah oo isugu wareysanayeen dhinacyada kala duwan shirkaasi waxyaabaha loogu hadli karo ayna qof walba aragtidiisa uu ka hadlayo. ciidamada ammaanka ayaana sidoo kale adkeeyay ammaanka magaalada Garowe oo ciidamo aad u fara badan halkaasi la keenay, kuwaasi oo shirkaasi furmaya awgeeda ammaanka guud ahaan magaalada Garowe ay tahay mid aad loo adkeeyay. waa sanadkii ugu horeeyay ee madasha aragti wadaaga sanadlaha ah ee macadka Heritage lagu qabanayo gudaha dalka, iyaga oo markii hore lagu qaban jiray gudaha dalkaasi Djibouti. dhinaca kale haddii Cabdiladiif Muuse Nuur Sanyare oo ahaa gudoomiyaha gobolka Mudug ee maamulka Puntland ayaa ka jawaabay falcelintii gaarka ahayd ee culimada Soomaaliyeed ay ka bixiyeen hadal uu jeediyay oo dadka qaar ay u arkeen mid meel u dhac u ah diinta Islaamka. gudoomiye Sanyare oo wareysi gaar ah siinay laanta afka Soomaaliga BBC-da ayaa ka cudur daartay arinta loo qabsaday, laakiin dhanka kale waxa uu sheegay in uu dhibsaday qaabka falcelintaasi baraha bulshada loogu soo falceliyay. sababta uusan masjidka ugu tukanayn ayuuna sharaxaad gudoomiyaha ka bixiyay in aanan masaajidka ku taganin waa sababta dad badan aysan u aadin oo ah masaajidka in laga baqayo oo aan la geli karin amni darro awgeeda ayuu hadalkiisa sidoo kale raaciyay. dhawaan baraha bulshada laga falcelinayay maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn hadal hayn loogu hayay baraha bulshada. hadal hayntaasi uu gudoomiyaha Sanyare 21 bishii December ka jeediyay xafladda caleema saarka duqa magaalada Gaalkacyo, kaas oo si aad ah loogu dhibsaday arintaasi. halka warkeena ka daawanaysaan waa Bandhiga TV. iminkana ku soo dhawaada daawadayaal akhbaraadkii dibadda. fadlan subscribe naga iloobin, warka inoo sheer garay, legna inoo saaro mahadsanid. maxkamadda ku taala Sacuudi Carabiya ayaa Lujana oo u ololeysa xuquuqda haweenka ku xukuntay xabsi 5 sano iyo 8 bilood ah, iyadoo oo 2 sano iyo 10 bilood mid kamid ah muddadaasi la joojiyay sida uu wariyay wargeyska France 24 qora. uu sheegay maxkamadda xukuumadda Riyadh ayaa xukunkan riday iyada oo boqortooyadu wajahayso cambaareyn kaga imaanaysa wadamada reer galbeedka oo ugu horeyntii Mareykanka uu ka yahay. Houtumena ayaa la haleeyay tan iyo 2018 kadib markii la xiray iyada iyo xubno kale oo u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka. Houtan ayaana lagu soo oogay dacwad ah in ay doonaysay in wax laga bedelo nidaamka siyaasadeed ee Sacuudiga sida ay sheegtay warbaahinta gudaha dalkaasi Sacuudiga.
qaramada midoobay ayaa ku tilmaamtay dacwadaha lagu soo oogay kuwa been abuur ah iyada oo wehlinayaan ururada u dooda xuquuqul insaanka iyo sidoo kale xildhibaano ku sugan Mareykanka iyo Yurub. xildhibaanada haweeneyda u dooda ayaa dhacdada yar waxaa markii uu boqortooyada ku arkay ku qaaday dhankaasi in maxkamad la saaro kadib arrintaasi ay ku cadaatay. xiritaanka haweeneydan ayaa dhacday wax yar ka hor markii boqortooyadu ay ka qaaday mamnuucitaanka haweenka wadista gawaarida taasi oo u ololeysay badani in muddo dheer ah ay u ololeysay arrintaasi kadibna ay u guuleysatay uuna u saxiixay dhaxal sugaha dalkaasi Sacuudi Carabiga boqor Salmaan Maxamed bin Salmaan. xukunka lagu riday haweeneydani ayaa waxa uu yimid ku dhawaaqitaan 3 isbuuc kadib markii maxkamadda Riyaad ay xirtay dhaqtar Mareykan Sacuudi ah oo halkaasi xukun ay ku fulisay. warkii daawada ka daawadaysa bandhiga TV waa dhigta nabadgelyo. Salaamu calaykum.